mudana gudoomiye mudana ra'iisul wasaare tan iyo markii xukuumadda xilka kalsoonida uu kala noqday golaha shacabka si hayaha xilka ra'iisul wasaaraha mudana Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magacaabay guddiga xil wareejinta guddigaas oo aan ka mid nahay waxaan u sii kala qaybsanay tiirarka waxqabadka guud ee xukuumadda oo ah barnaamij ka yimid ballanqaadkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan rabaa markaa maanta waa taariikh kale oo cusub, shalay waan ogeyn xukuumadihii soo maray dalka waa ka mid ahaa markii ugu horeysay ma aha in ra'iisul wasaare xilka sii hayo madaxweyne magacaabo sida la wada xusuusan yahay dadka qaarna ay og yihiin in maqan iyo in joogta. ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi markuu iscasilay caretaker waxaa ahaa Professor Salim Caliyow Ibro oo ku wareejiyay ra'iisul wasaare Nuur Cadde. madaxweynaha dalka wuxuu ahaa ra'iisul wasaare xil xukuumadeedna ma wareeji. ra'iisul wasaare ku-xigeen Cabdiweli joogay isagaana markii dambe prime minister noqday. taariikhdu waa wax qoran oo aan tirmayn fahamka iyo qaanuunka dowladnimada dastuur ama charter na fahmay rabtaa in nidaamka dowladnimada wabillahi tawfiiq. dhinacaas haddii aan u soo noqdo waa jibgudashadayda tiirka arrimaha bulshada ayaan soo bandhigi doonaa haddii Allah awoodda la ogolaado oo guddi hoosaadkaas ayaan madax u ahaa. waxaan igala shaqaynayay xafiiska marka haddaan dulmar guud ku sameeyo dowladnimada iyo dadaalka badan oo lagu bixiyay gaar ahaan arrimaha horumarinta bulshada oo saldhig u ah nabadda, dib u heshiisiinta, ka hortagga iska hor imaadyada waxaan midnaanta siisay bartilmaameedyo muhiim u ah horumarinta arrimaha bulshada. himilooyinka tiirka horumarinta arrimaha bulshada wuxuu ka kooban yahay dejinta siyaasad iyo shuruuc lagu horumarinayo adeegyada bulshada, kordhinta aqoonta iyo xirfadaha iyo fursadaha shaqo ee muwaadiniinta Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada, ka hortagga daryeel xumada iyo xal u helidda arrimaha barakacayaasha, baahinta iyo dejinta adeega bulsho iyo aasaasidda sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha, korontada, wacyigelinta iyo baraarujinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee arrimaha diinta, wadaniyadda iyo xuquuqda aadanaha. fulinta iyo kormeerka tiirka horumarinta arrimaha bulshada si loo fuliyo geed socodka tiirka arrimaha bulshada waxaa guddi hoosaadka golaha wasiirada ee tiirka arrimaha bulshada si istiraatiijiyad ay hagayso ayay leeyihiin mas'uuliyadda isku dubaridka guud ahaan fududeynta isku haynta wadajirka geed socodka iyo kormeerka howlaha kala duwan ee ku qeexan jadwal howleedka tiirkan kuwaas oo mas'uuliyadda hirgelinta iyo fulintooda ay leeyihiin hay'adaha hoggaanka ka ah sida ku cad jadwalkan. guddiga aan hogaaminayay arrimaha bulshada mudana gudoomiye mudana ra'iisul wasaare waxay ka kooban yihiin wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka, wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha, wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha, wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare, wasaaradda haweenka iyo arrimaha xuquuqda aadanaha, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka arrimaha bulshada, wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska, xafiiska ra'iisul wasaaraha
waxa ku hoos jira agaasinka biicada hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed akademiyada fanka iyo suugaanta fanka akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta iyo xafiiska madaxweynaha haddii aan hoos u sii galo waxqabadka guud ee dowladda ku salaysan waxyaabaha ballanqaadyadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka xukuumad ahaan nuuga fulay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxay ka mid tahay wasaaradaha muhiimka ah ee xukuumadda waayo waa wasaarad ay u xil saaran ilaalinta mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn uguna muhiimsan dalka iyo dadka wasaaraddu waxay dib u eegis ku samaysay maamulidda iyo kormeerka adeega xajka iyo cumrada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha bartilmaameedkeeda guud iyo ee siyaasadeed waxaa kor loo qaaday awoodda dhalinyarada iyada oo loo kuurgalay baahidooda si la isaga kaashado waxqabadkooda iyo diyaarinta barnaamijyo ballaaran si loo mideeyo oo si wanaagsan loogu maamulo adeegyada fursadaha taageerada ay fidinayaan hay-adaha kala duwan ee caalamka ee ku howlan horumarinta dhalinyarada si loo gaaro maxsuul wanaagsan oo taabanaya dhinacyada bulshada dhaqaalaha iyo siyaasadda shaqo abuurka wasaaradda shaqada siyaasadda qaran ee shaqo abuurka waxay muujinaysaa in ay dowladda Soomaaliya ka go'an tahay in ay ka dhigto shaqasiinta udub dhaxaad qorsheeda horumarineed waxay ku salaysan tahay in la aqoonsado oo si joogto ah oo loo dhan yahay horumarin looga sameeyo isticmaalka cududda shaqada dalka tani waxay u baahan tahay siyaasado iyo dhaqaale isku dhafan loo dhan yahay kuna aadan furidda iyo dib u habeynta jawiga ganacsi in loo abuuro iyadoo loo marayo qorshaha guud ee shaqasiinta dalka wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada waxay diiradda saartay sidii loo hirgelin lahaa sharciga shaqaalaha xirfadaha caafimaadka dhammaystirka howlaha shaybaarka qaran dardargelinta hay-adaha caafimaadka qaran maamulidda isbitaallo ay dowladdu leedahay qalabaynta iyo dib u dhiska isbitaal Banaadir Martiin iyo Furlin qayb ka mid ah iyo fulinta tiirka qaran ee caafimaadka loo dhan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa u taagan xaqiijinta helidda tayo waxbarasho guulaha la gaarayna ma sii faahfaahinay halkaan ku caddahay xil wareejinta meeshii ay ka bilaabatay iyo meesha heerka maanta ay joogto halkaan ku caddahay laakiin waxaan rabaa tirada goobaha waxbarasho ee la dhisay sanadahan aan joognay sanadkii iyo dugsiyadii la dhisay 2017 18 19 20 16 dugsi hoose iyo 4 dugsi sare shuruucda siyaasadaha gudiyada iyo dhismayaashii la dayactiray iyo tiirarka horumarinta ee arrimaha bulshada 14 shuruuc 4 gudi 16 siyaasad dhismo iyo dayactir 27 xarun oo halkan ku cad shuruucda hortabinta u leh tiirka arrimaha bulshada oo la soo qabtay waxaa ka mid ah diyaarinta qoraalka xeerka golaha sare ee arrimaha islaamka diyaarinta qabyo qoraalka 2 dib u eegista dhammaystirka xeerka saxaafadda diyaarinta sharciga xuquuqda lahaanshaha hannaanka qaran ee dhowrista
badqabka saxafiga copyright lowga, diyaarinta xeerka anshaxa saxaafadda, manhajka saxaafadda, diyaarinta xeerka warbaahinta dowladda, diyaarinta sharciga kheyraadka biyaha, abuuridda siyaasadda kheyraadka biyaha iyo dejinta qorshaha kheyraadka biyaha. 7 dhammaystirka ciribtirka gudniinka gabdhaha FGM. 8 diyaarinta sharciga xuquuqda caruurta. 9 diyaarinta sharciga shaqaalaha xirfadlayaasha caafimaadka. 10 diyaarinta iyo gudbinta sharciga horumarinta nidaamka dhulka iyo dhismaha. 11 diyaarinta sharciga bixinta qandaraasyada dhismaha howlaha guud. 12 samaynta sharci lagu xakameynayo xaalufinta dhirta. 13 diyaarinta qabyo qoraalka sharciga qaxootiga. 14 diyaarinta qabyo qoraalka sharciga kumeel gaarka ah ee bixinta dhulka dadka barakacayaasha ah iyo qaxootiga soo gurya noqday. siyaasadaha tiirka arrimaha bulshada, horumarinta arrimaha bulshada lagu hormariyo waxaa ka mid ah dejinta siyaasadii xajka, diyaarinta siyaasadda arrimaha diinta ee dalka, howlgelinta macadka sare ee imaamyada iyo qadiibyada dalka, diyaarinta dhaqangelinta siyaasadda qaran ee dhalinyarada iyo dhisidda golaha qaran ee dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed, dejinta siyaasadda ciyaaraha oo iyadana qabyo qoraal ah, dhammaystirka siyaasadda shaqo abuurka, dhammaystirka siyaasadda tubta qaran tababarada, dhammaystirka iyo hirgelinta siyaasadda ilaalinta bulshada, dejinta siyaasadda howlgabka darajooyinka iyo mushaarkooda, dejinta siyaasadda qaran ee maareynta masiibooyinka iyo saameynta siyaasadeed ee siyaasadda qaran ee gargaarka, diyaarinta xeerarka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda saxaafadda, diyaarinta xeerarka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda saxaafadda, saameynta siyaasadda adeega fayadhowrka biyaha, wasaaradda waxbarashada caafimaadka, diyaarinta siyaasadda horumarinta maamulka iyo macalimiinta, diyaarinta siyaasadda qaran ee bii'ada iyo xeerarkeeda kala duwan, diyaarinta isbeddelka cimilada iyo la qabsiga iyo ku adkaysiga, samaynta siyaasadda qaran ee barakacayaasha iyo dhaqangelinta axdiga Kampala, ka qayb qaadashada diyaarinta iyo meelmarinta 15 habraac siyaasadda maamulka iyo maareynta horumarinta shaqaalaha rayidka dowladda, guddiyada lagu dhisay tiirka horumarinta arrimaha bulshada, dhisidda guddiga saxaafadda Soomaaliyeed, dib u soo nooleynta guddiga waxbarashada sare, tayadhowrka imtixaanka, samaynta xog ururinta, dhisidda guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, samaynta iyo howlgalka guddiga go'aanka gaarista maandooriyaasha iyo dhaqangelintaas qorshaha qaran ee xal u helidda magangalyadoonka, samaynta iyo howlgelinta guddiga go'aanka gaarista magangalyadoonka iyo dhaqangelinta qorshaha qaran ee xal u helidda qaxootiga soo laabanaya iyo barakacayaasha.